شاعري مالية أبشر محمد حسن ومهد كده أولى بقول قران ودهب كنت قراءة وسنغافوري عقبها لأول وكيشة إن كل كاعي هيكل محمد موسى هيكل أدر وكوكيل نكاح مهد موقف هذه حسين بركة عليه سوكري أو قرن أديان تو أو لوسو جهد لجريه نكى تيجي هلا يصير كجيسي سما بتشرع عند قبل هذا الشيء قبل كسر تيجي تعبان سوكريان علم بران أو أنت لو يمدنو يبي هذا قبل إننا نذكر لنا أي ورسيا كدر السنة مجرته وايو قبل أي تابسو تبعيه سو كوريين سو كبير كسو تبعيه وخبرين أيام نتو إيمان أي سيريا مركا عد كدر السنة مجرته عليه قبل يلو كسو تبعيه جود قال الكلي عدي بحسن وحاليها دردار يبان شيء على بدي جانب wiilka iyo gabadha horta waxaan waa u ducaynaynaa waxaan leenahay kuwii isku waara Allah ka dhigo amiin وخير وحاكنا نفرنا وحوي خير بنفرنا وحنفرنا في الإسلام ونسينا ما السوي ما دمشي وخير بدل ما دام قوس الإسلام لا نسأل وحلا يكون سوارا أو خير تبع الله كلاسيو الله كذي آمين وحن ويلك كله ويلو كبرنا دربنا نقصد معايا سوكري سوكري كبرنا والله صبرا وحلا صبر كبرنا هي نو حلا كبرنا وحلا سيدا سلين بالله هاي وحويا إن شاء الله الله يكرمك كويس سكوار الله يكرمك لما أنت تذكر الشرف كان مفردين وقت السلامية أنا أفهم السلامية منصب كريم إنها وليه سلام كتب إلى عباد المهدئة إلى كل مية وواها كل موه هو خير بدل متكملة وكل فرحة له وحالكم ما أنت هتكون قرينا أروسكا لبل ليدر وأضو قيمة بدل ومراية الشدة وكاك تاير تماتا والله والله قرروا أدوم كان عنك هيكل محمد موسى يوم ماري أبشر ويقعد كرنا وحيلا إيمانية إلى المانتا مرحاتي كانوا قرنوا ميركودي وأنا أبو فرحوه وحكوا يرى القلايا ninkii nabadonka ay gabadha artigo ahaa oo ilaahay marka gabadhu soo dadto gabadh baa u gudnaa waxa waxa lahay ameena kale wuxuu ka soo jeedaa qoyskii ugu horeeyay ee ninka mid jacayl u dhigto الموضوع هو ذكرنا حويا أنا وكنا أقول ولا أنت تقول بكري خلاص تاسع شكاك فلان يا نوار إذا كمل علينا قبل على السيسن waayo waxaa lagu filanfaa qoyska ay ka soo jeedo
iyo shakhsiyadeeda iyo teetarka ay sirato boqorada waa teetar aad u qiimo badan waa la gabadha shax ku tilmaaman aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa horena waa isaga guursan jirnay waa la isnaqaanaa aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa sharafta aad ugu sharafteen waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa naga soo jeedaa qofkii ugu horeeyey ee jacayl ku geerida qofkii ugu horeeyey cilmi boodhari waad maqashay Soomaali marka sidaa daraaddeed boodhari way soo booqan doontaa boqoradan halkan markay tagto waa la geyn doonaa goobtii iyo sidoo kale weli gurigii iyo meeshii sida qaabkeeda u dhisantaa weli uu ku qorayaa boodhari insha Allah waxay ka mid noqon doontaa inta ay ku jirto bisha malabka ee Soomaaliland ay joogto goobaha dalxiiska loo geyn doono goobtaasi jacaylka ee taariikhda markaasi ku xusan aabihiya wakiishay wiilkana wakiil oo soo dirsaday labaduba wakiila u joogaan sheekha la wakiishay akoolna adeerkii ama qof kale wakiilka ah u joogo oo asigana ku midin doono sida caadiga dhaqanku yahay mar walbana dhacda kaas waa sultaankii beesha habar awal gacanta laga qaban rabaa sultaankii beesha habar awal ninkaas futashaarilaha ayaa wakiil ka ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أولا محمد صلى الله عليه وسلم كل حفظه وحفظ ظلاله إلى نوع عقد الشرع وفحصان وإله راضي وكيها أن أخرج له إله هذا bulshada meesha joogto dhan maadaama nikaaxu uu ku dhacayo jamac ama ijtimaaci uu ku dhacayo dhammaan waa wada markhaati anaa markhaati gooni oo hal iyo laba iyo maadaama dadku ay badan yihiin waa inaad ogaatiin inaad dhammaantiina caqadka dhacitaankiisa aad markhaati ka tihiin gabadha waxaa la yidhaahdaa maariyo abshir maxamed xasan wiilkana waxaa la yidhaahdaa haykal maxamed muuse wiilka hadda lama joogo waxaa u wakiil ah walaalkiis aadan u wakiila sidaasa ogaanaysiin gabadha aabaheeda anigu wakiishay inaan caqad ka rido mahadkeeduna waa 100 garaan oo dahab ah oo finti una ah nooca sinkabuurigana ah sidaasa ogaanaysiin caqadka gudaynaa intaasba inaad markhaati ka ahaataan oo aad joogtaan maadaama dhalinyaro iyo nuquubsho iyo akhyaar dhammaan ay meesha joogaan dad haddana dhammaan wada muslimiin oo ahlu taqwa ah aad wada tihiin dad waxaa tihiin u suuban inaad qof kastoo idinka kamida lagu faro inay naqato markhaati sidaas darteeda marka dhammaantiina waxaa tihiin markhaatiyaalo sidaas ugaada caqadkana aniga heli doono magaciida liyaaba cabdikariim sheekh cabdullaahi maxamuud xasan عقد الدولة والله وكيشين وأنا بقبلنا بالله له الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه صلوات الله وأزكى تسليماته عليه أما بعد أزوج موكلك وأنكح موكلك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تفضيل بإحسان زوجت موكلك وأنكحت موكلك هيكل محمد موسى بنت موكلي مالية أبشر محمد حسن بوكالة وليها إياي وبإذن وليها إياي ومهرها 100 جرام ذهب السنغافورية حالا في ذمة موكلك فالأمر مطالبة من موكلك متى شاء قبلت
له نكاحها وتزويجها ويزوج موكلك ويمكن موكلك على ما امر الله به من امساك بمعروف او تصريح باحسان. زوجت موكلك وانكحت موكلك هيكل محمد موسى بنت موكلي مريم ابشر محمد حسن ووكالة وليها إياي وبإذن وليها إياي ونحوها 100 جرام ذهب السنغافورية حالا في ذمة موكلك فعل مطالبة لك من موكلك متى شاء قبلت نكاحها له وتزويجها بالمهر المذكور. هيكل محمد موسى وقد تصور في شيء أو عن كل كاحية مالية أبشر محمد حسن ومهد كيد أولياء وقل قران وذهب كنت قراءة وسنغافوري هذا أول في شيء عن كل كاحية هيكل محمد موسى هيكل أديو كوكيل نكاحات مهد كاس موضع بشر نكاحاس مهركاس والله هيكل محمد موسى وأديو كصور في شيء وأن كل كاحية مالية أبشر محمد حسن وأعطيها لأقصار في شيء إن كل كاحية هيكل مهر كيد وقل قران وذهب وفي تقراء سنغافورة عن كل يوم كل كاحية هيكل مهر كاس نكاحاس هو بشر مهركاس نكاحاس والله بارك الله هذه حسين بركة عليه دورنا على الحمد لله الله نوع الله سكده الله سكده الله حتى نوع الله